xalqadeena labaad waxay ku bilaabanaysaa sida tan jiddi waqti xadirkan wuxuu ku sugan yahay goobtii asiga gabadha uu jeclaa ee waqti ku wada qaadan jireen runtii jiddi wuxuu galay xasuuso fara badan waayo waqti xadirkan goobta uu ku sugan yahay waa goobtii asiga gaclisadiisa waqti ay ku wada qaadan jireen runtii jiddi wax la noqotay fajac waayo goobta uu ku sugan yahay waa goobtii markii ay ku begneed dhalashadeeda oo xafladda ugu dhigayay jiddi runtii waa qof wanaagsan gabadhana si xad dhaaf ayuu jeclaa balse waqtiga ayaa ka heeliyay labada qofoodna markuu xiriir ka dhaxay waa dareemi kartaan xanuunada noocan oo kale inuu dhaxmaro jodi asagoo meesha iska fadhiyo waliba fikirayo ay waxa u imaanaysaa si lama filaana gabadhii oo intaas sano oo ka maqnayd runtii asiga markuu arkay gabadhani waxay la noqonaysaa arintu mid akiran ayagoo meel joogaan goobna ku wada sugan waqti wada qaadanayaan intaba jodi waa soo xasuusanaya jodi gabadha uu jeclaa runtii erey hadda kore ay tiraahday ayuu soo xasuustay waxayna tiri runtii adiga maxay tahay sababta aad la fikirayso misana sawa kuugu kalifayo marka aad horteeda timaado in adigoo dhan maqana jooga aad noqoto markaas wuxuu ugu jawaabayaa kaliba noqdo wehelna ma haysto sababta igu kalifta inaan fikiro waa sababtani gabadha waxay ku leedahay adduunyadan sidaan u inaad arkayso runtii ma ahan mid lagu qeexi karo qofka bini'aadamka shakhsiyadiisa gabadhii ayaa u jawaabaysa waxay tiri haddii adigu 99 qofood aad ku dhex jirto kan boqoladna adigu aad tahay waxaa loo baahan yahay 90kaas qofood oo adiga kugu hareeraysan in aad la dhaqanto sababtoo ah 90kaas qofood oo adiga kugu hareeraysan waxaad ogaataa inay isugu jiraan dad wanaagsan dad xun intaba way iskugu dhex jiraan jodi gabadhii wuu soo kaxaynaya gaariga kusoo qaadaya kadibna gaarigii albaabka furaya gabadhii kasoo dejinaya wuu soo wadaya wuxuuna si toosa u keenaya qasrigiisa ama hoygii asiga oo lahaa gabadhii runtii fajac ay la noqonaysaa sababtoo ah ninkani waxay ku ogeyd noloshiisu mid iska normal ah maadaama asigu aabihiisa uu yahay nin hantila balse asigu muhiimadiisu aysan ahayn hantidu aabihiisu uu leeyahay runtii waxaa jirtay guriga bisid yar oo joogtay gabadhii markaas bisidii qabanaysa kore usoo qaadaysa kadibna bisidii ku mashquulaysa joodiina cabitaankiisu iska sii cabaya runtii asigoo dhaliilsanaya waxa ayada ka dhex guuxaya inuu ogaada rabo laakiin ma aysan dhicin jodi wuxuu rabaa gabadhan xog inuu ka ogaado sababtoo ah wuxuu rabaa intaanu sano meesha aga maqnayd su'aal ayuu weydiinaya su'aashaas oo ah waxaa jirta qof aniga ii dhawaya oo runtii nafteeda aan kalsooni aga qabo qofkaasi ayaad u eg tahay qaab ahaan marka aan ku fiiriyo markaas leedaa maya u kaadi uu qabanaya jodi kadibna cabitaanku cabay ayaa ku daadanayo runtii jodi dareenkiisu waa uu isbedelaya jodigii dabeecadii dibcigii intaba uu lahaa waa uu bedelmaya jodi gabadhii ayuu eegaya ayadan waa eegaysaa sidoo kale gabadhan waxay la yaaban tahay ninkani isbedelka ku yimid si fiican ayuu u fiirinaya ayadan way fiirinaysaa ayadu waxay doonaysaa ninkan xog ama shakhsiyadda amaba sawaha ku kaliftay isbedelkan weyn in uu sameeyo waxa ka dambeeyay ayay doonaysaa gabadhan inay ogaato balse asigu waxay u muuqataa qoftani inay tahay qoftiisa in ay tahay ayay u muuqataa ayadu taas ay tahay haddana shaka ayuu ka qabaa gabadhii waxay soo qaadaysaa flash oo asaga meeshii aaga tagay waxay soo qaadaysaa kombiyuutarkii ay flashkii ku kubigaranaysaa markii ay ku kubigarayso way soo baxaysaa asagana dhankan kale ayuu soo aadaya jodi markuu halka yimaado jodi qofba meeshii kuma sugnaba goobta ah ayada ah markaas kadib jodi warqad ayaa meesha uga tagtay gabadhii warqadii ayuu fiirinaya waxaana ku qoran u dhowlo cadday si kalsooni leh hataa cadowgaaga haddii uu kula joogo lambarna meesha ugu rabtay jodi arrinkii wuu la yaabay waa uu dabagalay jodi runtii waa nin dadaal badan juhdi fara badan waa uu bixiyey maalinkii labaad ayaa la gaaray maalinkaana runtii dhammaan shaqaalaha meesha joogeen oo dhan ayaa la sugu yeeray sababtoo ah jodi aabihii ayaa imaanaya oo ah meesha manajerkeeda jodina waa manajer ku-xigeenkii runtii odaygii ayaa meesha hal mar soo fariistay dadku dhan waa ay wada istaageen markaasuu ku yiri hala wada fariisto sida lagu wada fariistay odaygii wuxuu yiri sidee tihiin waan fiican nahay kadib gabar baa tiri su'aal baan qabaa su'aashaas oo waxaan rabaa projectigi in aad intuu tusin karaa ha kadib gabadhii si toosa ayay projectigi u daartay bal meeshii maxaa ka dhici doono projectigi markii sidii loo daaray waxaa la arkay durbadiiba jodi informationkii oo dhan amaba odaygii wada shaqayntii ama wixii macluumaada kambaniga ku salaysnaa intaba in lagu faafiyey baraha bulshadii sababtoo ah odaygii iyo asigu waxaa jiray wada hadlo badan ama waxyaabo fara badan ay ku wada hadleen ayaa jiray odaygii marka uu lahaa gabadhan nolosheeda gaar gabadha adeerkaaga uu dhalay ayaan raba inaan kugu daro haddii ay dhacdo gabadhan in aad guursato waxaad ogaataa hantidii aad igu lahayd intaba in aan kugu saxiixayo dib dambena iima sheegan doontid
runtii projectiga meesha laga helay waa xogtii oo dhan oo dhammaystirneed oo kambanigii waxaana soo qaaday gabadhii uu asaga xiriirka kala dhaxeeyay wuxuu la yaaban yahay ama uu fajacsan yahay waa arrinkaas wuxuuna leeyahay xaqiiqa kantan projectigan odigii runtii waa uu xanaaqaya fadhiga wuu iska fadhiyaa mooyee ma fadhiyo odiga maskaxdiisa oo dhanba si kale ayay noqotay joodiina arrintii fajac ayay la noqotay markaas wuxuu ku yiri projectigan ama managementigan copy baa laga sameeyay waayo cidda ka samaysay gabadha waxay ugu jawaabaysaa kulley qof adiga ku dhow soo lagama yaabo in informationkan ama macluumaadkan in uu soo koobi karay halkii ayay timid gabadhii markaas ku tiri qof walba wuxuu jecel yahay in uu guulaysto balse yaa guulaysanaya shakhsiga kaliya guushiisa danaya unbaa mar walba guulaysta ninkii asiga ahaa taladu waa ay ku wareertay gabadhii oo meesha ku wada kulmayeen in ay tahay gabadhu xiriirka kala dhaxeeyay ayuu xaqiiqsaday asiguna daacad ayay ka ahayd waayo hal mar xataa muusan ku fikirin in uu xiriir been ah gabadhan uu la sameeyo balse gabadhii ayaa waxayba nafteeda ka dhaadhicisa ninkani inuu xiriir been ah uu la sameeyey misena uu rabo mustaqbalkeeda in uu baabi'iyo saas darteed gabadhan waxay go'aan ku qaadatay ninka kan in ay dhulka la goyso runtii informationkii meel walba ayuu qabsaday gabadhii ayuu eegayaa aydan way soo eegaysaa arrintii maskaxdiisa ayay ka weynaanaysaa meel walba ayuu ku faafay twitterka meel walba jaraa'idada facebooka dhan walba ayuu ku faafay informationkii caalamka oo dhan ayuu ku wada faafay kambanigan aad arkaysaan waa kambani soo saara smoke ama sigaar sidaad u taqaanaan macluumaadka meesha lagu iibiyana waa secret ahaan ayaa loogu iibiyaa sigaarka balse si gaar ah amaba juhdiga kambaniga lagu bixiyey ayaa ah businessya kale balse kambaniga si hoos ah amaba si qarsooni ah ayaa waxaa loogu iibiyaa smokinka gabadhan runtii xogta ay soo heshay ma ahan xog oo keliya babi si toos ayuu gabadhii soo garaacay markuu soo garaac kadib way ka qaban weysay way ku dhageysatay ayadii saaxiibteeda way soo baxeen kadib dhankan ayay soo aadeen asiguna arrinkan waxay la noqotay fajac weliwel fara badanna waa uu ku beerma runtii sababtoo ah waxaa la yidhi god qayaanaha qodin haddaad qodaysidna ha dheeraynin ku dhici doontaa lama oge daawadayaal xalqadeena halkan ayay noogu dhammaatay la soco xalqadda 3 waana mahadsantihiin fadlan haddii aadan subscribe oo kuu saarnayn maantaba nagu soo biir subscribe saaro gambalaalkana furo waana mahadsantihiin noo shargaray dhiirigelin ayay noo tahay mahadsanidin